محمد مسوي ذي أصبح كلا أقول جهان هاي كبد قدرتك يكون مالسينيين قاعد نفل عارية خوارج الداعش قلت كان شيء كذي ساي مر ودلو ذاك تونا اللي ظاهر عقوله يعني هو قامني أنا بس كاميرا أيام هرها يا رجع ويدي كا beertan ayuu godku ku dhex yaalaa oo uu ku samaysan yahay waa underground dusha waxay ugu talagaleen markay diyaaraduhu marayaan in beerta laga arko gudaha qashin baa ka buuxa waa kan godka afkiisii meelaha laga neefsado biraha kor waa beertaas uu ka yahay birta neefsi gudahaas hadda ayaynu geli doonaa godkii ayaanu markan ku soconaa galaynaa waa kuwa ka qaadanayay tajiinka yambix mare markan goolada kale halkan waxaa ka bilaabanaya deegaan ahaan meeshii deegaanka ahayd jiifka meeshii ahayd hoyga way way waa soo galay gudihii waxaa ka samaysan halkan qol weyn saa u jeedaanba wuxuu joogaa ilaa iyo gadaal oo intaana furaashadoodii ayaa yaala saa uga jeedaan baalkani waa kii oo katabaanka tanina waa barkin way talidaar cagoole ayaa markaasi ciidankeena halkan soo galay hogaaminaya isaga ayaanu warbixinta la siin doona halkan laakiinse maadaama ay tahay meel ciriiri ah oksijiintuna ay aad ugu yar tahay banaanka ayaan u bixi doonaa si aan ugu hadalno oo taliyaha uu warbixin rasmiga ah uu nooga siiyo halkan balse sheekada godka iyo halka ay kasoo bilaabantay ilaa iyo bilowgeedii waa nala socoteen aniga saaxiibadeeda ciidanka geesiyaasha difaaca Puntland banaanka u bixi doonaa insha Allah waa baxasamo godkan waa godkii ama beertan waa tii shalayto aan kala wareegnay argixisada kala wareegnay si xirfadaysan meeshan waa deegaan aan u muuqan inay dad ku nool yahay laakiin u muuqata inay beer tahay laakiin waxaa ku noolaa amiirada cadowga shalayto markaan la wareegnay meesha barqanimadii ciidanka oo ka dharagsanaa xogahooda una lahaa khibrad iyo taqaqus ayaa waxay gacanta ku dhigeen beertan wuxuu ku sameeyeen god baa la qoday godkaas ilaa 100 mitir weeye dhowr jeeruu galaa waxay ka soo jeediyeen tuubooyinkii oksijiinka si ay hawo uga helaan kor dushana waxay ku beereen qudaar iridana waxay ku gooyeen raray haday saareen aad u jeedaan bay carra saareen
baaritaan badan ka bacdi waxaan soo helnay godkaa ay ku dhuuman jireen. godkaa adeeg kasta waa u dhammaystirnaa. xagga waxaa ka ah koonfurta ah isbaaro weyn oo ay u taallay iyo calankoodii iyo rugtoodii ayaa ahayd. kooxaha argagixisada waxaanu macnaha mataqaanaa mar kasta aanu ugu xalaalaynaa dadka iyaga shacabka ah ee reer puntland ama ummadda soomaaliyeed dhiigga iyaga ugu xalaalaynaynaa ugu daadinaynaa. waa in halkaa kuwo ku jira iyo kuwo meel kasii liita ku jira aanu ka qabanno, qoortana goyno, sharciyaddana kusoo dhoweyno. waxa aan nolol ku qabanno, wixii naga hor yimaadana aanu madaxa jirno. ciidankan waa ciidan loo dhammaystiray khibrad kasta oo argagixiso lagula diriri lahaa. waa ciidan u dhammaystiran yihiin dhagar kasta oo argagixisadu ay samayso sida ay uga hortegi lahaayeen. waxaan u sheegayaa dadka reer puntland inay ku kalsoonaadaan ciidankooda. hambalyada iyo garab istaagga iyo qiirada ay nala garab taagan yihiin waa mid aanu ku filannahay argagixisada. waa mid aan nolol kaga cabsanahayn. waa mid meel kasta oo ay galeen geyiga puntland ama geyiga soomaaliyeed hadday nala galaan xataa geyiga soomaaliyeed oo ay nagala gudbaan xaduudda puntland waxaanu diyaar u nahay inaana kaga hortagno, aan kaga daba tagno, madaxana ka gurno, ciribna tirno fayraskooda intaysan ummadda soomaaliyeed ku faafin. ilaah baa mahadle. waxaan u mahad celinayaa ciidanka puntland oo ay ka muuqato kalsooni isku filan, farxad dheeriya, ayagoo mar kasta usii hamuun qaba daadinta dhiiggooda iyo ciribtirka dhiiggooda iyo naftoodaba. aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinayaa ciidanka puntland ee ku jira howlgalka Hilaac, saraakiil, dabley, alifley, saraakiil xigeen, dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa niyad wanaagga, kalsoonida, sharafta ay ku marayaan buurahan oo mar kasta ay u muuqdaan dad aan daallanayn, dad faraxsan ee ku qanacsan howlgalka ay ugu jiraan ummadda soomaaliyeed. 100% waxaan leenahay idinkaa ku mahadsan. waa mudan tihiin inaan u xalaalayno nafteenna iyo maalkeennaba shacabkeenna siday sharaf ay u yeelan lahaayeen. wax walba meel kasto ay galaan, tog dhagar kasto ay dhigaan, bannaan hadday u baxaan, buur hadday galaan, godkan iyo kuwa ka sii liita hadday galaan, waxaan nahay kuwii kala soo baxa. waxaan nahay kuwii leh khibradooda iyo aragtida dheeriga oo ay ku heleen godadkan. waxaanu ballan qaadi doonaa inay ku noolaadaan shacabka soomaaliyeed xarago, sharaf, kalsooni iyo midda ummadda adduunka ay ku nooshahay, sharafta ay ku nooshahay mid ka sarreysa.